يعني توغو أيا دلكني قعنت وقل أي جايسن أو أنت هذه إن كهف سدي لفها كجرنا يردون هيا أيود من تهي شعب كالصومالي أنت كاسرين وقت وحكى وكذا من ما أنا قاعد أصلي نقليه إلهي بما هذا أسقناتي أن أنا أحمد معلم فقيه عاون نرى نقول جارسيي أو فيديو كان أو كهذا حلقي فرماتشو أنا عاون سوقات عنو أو حلقاس إجارسيي أصغر النبض كسو جارسيا إلهي يقوم هاد علنية الحمد لله رب العالمين الماذا الرجال البرنامج كان أحمد معلم فقيه داو عيسي ميت كيساس قوة عاون قبيالدي رهبلي قلقلي ما قانانو وأنا ذلك إنك كان وتعاود شيدني هذا الكيسي حلقي فرماتشو ويريان وطا ما أنت ماشي تاجن تعرف أنا كهذا شير قرية صوماليو دنا توصل فيديوغا وعطسر يدي قف كستو صومالية توصل وأنا ربع أحمد مع الفقر شرعي مانتي أنا حسوسية ربع ما لو إنه هم سهلنا وها عقل جيسة ما ميكروفونك كليو كو حساب سنة مركو كو هلا ميكروفونك ما سووحوا أهان قلبك كهالية ودتك الصومالية رن وشيغايوها انت سربا عاو إنا فرقيو ومدى الصومالية ننقارسي أحمد معلم فقيه وهلا وحكاها اللي أحمد معلم فقيه حلقي فرماتشو وحكاها اللي أن دولدي فرماتشو دليلا يوليا ويهيهاتو أن أنا كأننا عنتانا كسودو فرماتشرا مرقاتي لا يدي فريسين دكتاتر حكم رادس كليو اما هاي نين دادك هانتيدو بوباي نين غريها ككعسانيا نين دولاركا ككعسانيا نين داد بوباي نين هانتي بوباي من ما هاي فرماتشو بلانكيسو دن وحو ahaa ciidan inta dhisto inuu wadan ku fadhiyo 20 sano qodbadii wuxuu dhageysan jiray maxamed siyaad barre muxuu yiri marka Axmed Macalin Faqih hayaato annaka inaan cunto kaliya ay u dhiman tahay ayaa wadankii qabsato yiri maanta muxuu yahay Axmed Macalin Faqih oo wasiirka arrimaha dibadda awood ma leeyahay inuu yiraahdo war waxaan wadanka ka socda nidaam ma ahan hal la joojiyo yes waleey wasiir arrimaha dibadda way wasaaradaha awood ku jira yes he can wuu awoodaa maxaa maanta dhacay marka dadkii noolaa ooyaashiis adeerayaashiis eedooyinkiis walaalihiis ehelkiisa waa ka buuxa iskuul bulisiya dadkii la soo qofayaa meydkoodii maxaa dadkii laga jeclaystay in lacag la dhaafsado meyd lafo la soo qodo oo hooyooyin ku dul ooyaan oo caruurta ku dul ooyaan oo waaridkii ay dhalin ku dul ooyaan oo ay tabar ay ku doogtaan haysan oo maanta ciil ay u dhimanayaan oo waaridkii meesha ku ogaa oo ku siyaarin jiray laga soo qofayo oo maanta Axmed Macalin Faqih xilkaaya wuu awoodaa inuu yiraahdo Xasan Shiiqo waa qalad waxaana la joojiyay dawladda ha joojiso hay'adaha ha joojiyo haddii laga diidana inuu xilka ka tago awoodaa maanta laakiin muxuu ku hadlayaa meesha la arko ka hadlo dawladda ugu fiicneed ugu wanaagsaneed aad meesha joogta marka nin raga tahay oo ilaahay inuu dhameystira tahay oo aqligaagu 100% yahay oo aad nin siiqaana aad tahay oo aad og tahay in ilaahay irsaaqadaada qoray hamiinka dhalatay adduunka inta joogtana aad baahanin marka taqaanid wixii qaldan waad ka leexanaysaa haddaad is aqoonna waxaad iska dabagelaysaa shakhsi aad isleedahay ama baahi u dhimataa haddaa ka leexatid sida nimankan siyaasiyiinta hadda oo meeshan hoggaanka wada haya وحسن الشيخ محمد اسكت دبا سعودة إلهي بايقوق إن حسن الشيخ محمد وقفين والله بالله تالله عاو إلهي مقع عيسى قرارت وعلى الحمود قبر القضية مركا عرك إلهي سبحانه وتعالى أفر بلوت كهر لما بلوت كهر أفر بلوت كهر إلا مارس إلا هذا قلبك إلهي دولده وكدوه واللي يسوى مروه إلهي حمانته يقول لي حني إلهي مصيبة داس أنو التاقيرية دولدان مصيبة داس أنو التاقيرية دولدان وصدا التاقيرية إن مصيبة ugu dhacdo oo la yiraahdo xil guntada dawladdu taageeray waaga qobrida la qoray ilaahay iga leexo subhanahu wa ta'ala masiibooyinka kalena oo soo socdana ilaahay iga leexo dadkan taageeri doono masiibooyinka soo wadaana ilaahay iga leexo ilaahan ka magan gal ilaahow adaa igu simin maanta anoo taageeraya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa in qabridaas la soo qodo ilaahow adaa igu simin ilaahow adaan kaaga mahad celiyo
sababtoo kabaa'irtaasaan wax ka qaadan lahaa waa ninka hooyadiis meydkiisa oo la qodayo macnaha xasan sheekh u qalbi fiicnaanaya waa ninka awoogiisa iyo adeerkiisa la qodayo meydkoodii oo la soo bixinaya lafahoodii xasan sheekh u qalbi fiicnaanaya miyaan dadka iyo dalka iyo diinta loo dhaaran miyaan dadka dhintay iyo dadka noolba laga mas-uul ahayn maxaa loogu ciyaarayaa hay-adihii dowladda canshuurta aan siinayn maxaa dadka shacabka awood loogu sheeganaya maxaa loo maruqsanayaa wiilal yaryar oo xisaab aqoon oo diin aqoon loogu diraya dhulalka oo hadla loo leeyahy oo telefishinada soo istaagaya maxaa culummo mushaar qaadata inay diintii ka been sheegto ilaahay ka dheeraato mushaarkooda keliya ay fiirsadaan cali wajiisi rag leh maxaa keenay sootan culummadii wada hadlaysa maanta oo dhahaysa waa xaraam qof muslima meeshii lagu duugay in loo daayo wey sootan dhahaysa culummadii maanta maanaa ka hadalsiiyey maxay leeyihin maxay dhihi doonaan marka kuwaas nimanka culummada dowladda u ahaa oo culummada ay u xaraysato culummad ahaanta u haysatay soo nimanka ogolaada maalmeed inay soo qodaan maalin dambaana in ka dhegaysan sheekh cali wajiis wax kasta haddaad sheegtiin adduun rugmadkiyaa dhacaya haddaad tiraahdeen in ka dhegaysan maayo aniga ummadda soomaaliyeedna waa inka niyad jabta qalbigiina waa dilaaciseen nimanka qabriyada kasoo dhaxadlaad tihiin nimanka dowladda ka dhicin waayaad tihiin waa ceebowdeen sharafka alle inka qaad diinta ilaahay u gafteen ilaahay sharafka inka qaad ilaahay sharafka inka qaad laba culummada dowladda u xaraysanoo mushaarka ka qaadata ilaahay sharafka inka qaad ilaahay sharafka inka qaad ayeeyooyin awooyo adeerayaal waxba dhulka soo qodaysiin ilaahay sharafka inka qaad ilaahay qabriyada inkaga hadalsii qabriyada ilaahay inkaga hadalsii guryihiina adinkoo jiifa mowtada aad soo qodeen ilaahay inkaga hadalsii waa in inkaara caaw qalbigaan inka inkaara waa calool xumooda dadka hooyooyinkooda ku dul ooyaya waa hooyooyin waxa dhahaya xasan sheekh hana daayo meel ku dugna ma naqano dadkan maxaa madaxweyne afrikadaas u keenay maxaa u keenay ilaahay sharafka nagama qaado axmed macalin faqiyow wasiiraa ka taha ha is ilaabin yahayaatadii ashala sheegtay dadka diiranayay dadka qabriyada masiibada ku dhacday masiibada dowladda ay ku dhacayso ayaad wasiir ka taha axmed macalin faqiyow hadalkaana xasuus meel ku yaalla waayo waana la soo qaadan doonaa intaa nooshahay